بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وزيرك فيلمس مقعي مصطفى عبد الله الشيخ لو يقان وزيرك أرضيدا ugu xiran ardayad kamid ah waxay soo weydiisay waxaan u baahanahay ina wax noogu sheegto ficilkan ama verbigan oo la dhaho muusan because farqiga u dhaxay hadda umlooda ku jiro dabcan marka leedahay iska hadlayso waa ish mus waay laakiin ficilka asaasigiisa muusan ala dhaha muusan English ahaan wuxuu noqonaa have to ama must yani كليدك إنجليز كوالد ويا قانين have to ويعني must waxa loo isticmaalaa waxyaalaha waajibka ina sameeyso I have to pray I must pray I have to go wa ina baxa yani markay qasabta ina baxdo ma fahanti I have to play I must go waxsaas oo kale marka يعني واجب عمل waa shay inay qasabka ugu tahay guriga waa ina nadaafisaa suuq waa ina aada kan waa ina sameeysaa marka dhaysid waa qasab ay kugu tahay isticmaalay marka ficilkan wuxuu kamid yahay inay lix yihiin jaclay 1 2 3 4 5 waa lix waaye di modal verban ala dhaha ma fahantay ama afcaal musaacada ama ficilada caawiyaasha marka kaligooda ma shaqeeyaan inta badan ficil kale la shaqeeyaan dabcan the modal verbiga waxa kamid ah dürfen können mögen müssen madkan maanta baranayno ah müssen sollen and wollen wax waaye rabitaanka sollen wax inaad sameyso marka waxa isku dhadhow müssen iyo waxa isku dhadhow iyo sollen badan isku dhadhow مثلا marka erigan midkan verbkan sollen marka isticmaaleyno wax inaad sameysid arabtid laakiin hadaad sameeyeen joyce ay leedahay oo kala isticmaaleysa laakiin markan müssen isticmaalno waxaas inaad sameysaa marka waxay ka go'antaa farqi u dhaxay halaas waaye muusan waa idin sheegay marka mogan waxyaalaha like ishmak oo kala waxa jeclahay oo kala konen awooda waaye ishkan du kaniste dürfen waxa lagu talagalay ogolaasho macnaha qofka marka dhiso kala laguma ogol sigaarna inta ku cabtid laguma ogol meeshaan inaad baaskiil ku wadid amal waaye ma fahanteen marka diese Verben benötigen normalerweise ein weiteres Verb hore idin kugu sheegay ina isticmaasho ficilkan waxa u baahan tahay ina isticmaashid ficil kale yani kaligiisa ma isticmaalaysid yani mesela inaad tiraahdo oo kale ish mus okay aniga waxa qasbi waa maxaa qasabku waa لازم ina wax kale keentid waa marka badana marka ficil kale loo shaqeynaa okay marka waxaan haysanaa hadda 1 2 3 4 5 6 7 8 ilaa iyo 9 waxa haysanaa oo nominative ama magacu yaala ama damair af carabiga lagu dhaha marka magacu yaalo waay marka adiga iska hadlayso wuxuu noqonaa ish mus qofka ka soo horjeedo ama qofka kale marka adiga horta taagan ama qofka kale ka soo horjeedo marka uu isticmaalayso wuxuu noqonayaa du musst marka taa soo galayso marka ka hadlaysid rs waa taqaaniin asiga ayada ama s marka isticmaalaysid wixii ka soo haro asiga ayada laba dhidig wixii ka soo haro marka saddexdan qof maqan rz iyo s marka isticmaalaysid iyo ish waa isku mid waa mus qofka ka soo horjeedo ta oo qaadana waa du musst okay marka anaga iska hadlayna marka waxay noqonay via müssen anaga waxa qasab nagu ah iyo must idanka waxa qasab idinku ah okay waxa ugu dambeeso laba z waa arkaysiin zidan capital ka dhigay midana way yar tahay marka zidan yar tahay müssen waxa laga wadaa dad badan oo maqan yani ayaga marka dhehaysid ayaga zidan kala weynna waxa kulli ficilkiis ma bedelayo mar walba waa müssen isma bedelayo zidan kale wuxuu taagan tahay waa mid ixtiraamku waa qofka ka soo horjeedaha oo formalka because informal iyo formal ay jiro because marka arti informal waxa leedahay du musst laakiin markay formal tahay meel xafiisyada joogtid iyo ixtiraam qaab ixtiraam ugu hadlaysid kana isticmaalaysa müssen adoo qofka dhahay xataa waxaas waa inay caawisaa waa ina saas yeesha saasa u isticmaalaysa marka tanna zidan kalena waa ayaga tanna waa idinka hal qof iyo laba qof hal iyo wixii ka badan oo dad badan yani idinka markaa dhis dad badan yihiin tanna waa anaga
kana waa adiga qofka soo horjeeda du kana waa asiga iyo ayada iyo estan waa taqaanin kulay wixii ka soo har labadaas loo isticmaalay okay gudaha u galayna marka Beispiel tusaale ahaan marka horna waa idinku ugu sheegay mus kaligeed lama isticmaali karo marka tusaale ahaan waxa isku daya jumlo yar aan sameeyana mar walba iyadoo mus ka maqan musan iyadoo ka maqan marna iyadoo musan ku jirta idin tusaa okay marka waxa dheena marka ish ama ik waxa doonta dheem badana dhawaaqada muhiim ah qofka inuu luqada yani fahmaya muhiim ah ik lerne Deutsch aniga waxaan baranayaa luqada Jarmalka meeshan xariiqada idin saaray sababta xariiqada aan u dhigo waxa way meel walba aan xariiqay waxa laga wadaa xataa inta capital ka dhig meeshan waa inay capital noqotaa kaas waxa rabaa inaa idin fahansiiyo okay meel walba oo xariiqin la saa arkaysiin xarafka koowaad weyn aan ka dhigay marka badana marka wax qorayso jumlada aad qoraysid hadii noun ama magac uu ku jiro waa ina xarafka koowaad weynaysa hadda Deutsch waa German waa magac waaye house waa guri wax meesha dhan ay idin xariiqisaas waa hadaanan xariiqin waa ficil lama xariiqo had kan oo kale duushan waa qabiiska ma fahantay ma xariiq waa ficil marka magac badana waa inuu capital noqdo asaasa idinku xariiqay kelimada ee ka bilaabata sadarka marka wax qoraysidna waa inay capital noqotaa okay labadaas shay muhiim ah ilmaamina marka ich lerne Deutsch waxaan baranayaa Jarmalka marka ina mus isticmaalo marka aniga waxa qasab uga Jarmalka inaan barto yani qasab ay ugu tahay oo macnaha okay salahan Soomaali hadda ku noolahay meel kale waxaan dhihi karaa ich lerne Deutsch waxaan bartaa Jarmalka laakiin marka Jarmal gudihiisa joogo luqada qasab ay ugu tahay Soomaalian marka waxa leeyahay marka ich muss Deutsch lernen ich muss Deutsch lernen waxa qasab uga luqada Jarmalka inaan barto marka erigan musen ama mus waxa loo isticmaalaa waxyaalaha hore idinku sheegay oo qasabka okay markaan bobsiino su'aala meeshan taalo kommst du nach Hause مثلا guriga joogta ma fahantay qafa wuxuu waxa tiri kommst du nach Hause adi guriga ma iimaanaysa aad tiri marka mus ina isticmaal sharta guriga waa ina timada qofka ina tiraahdaa guriga waa ina timada macna guriga ma iimaanaysa bis ma su'aal guriga waa ina timada marka waxa leedahay marka du musst nach Hause kommen du musst nach Hause kommen waa u jeedin ficilka labaad oo kommst banaanku aad markaan okay waxa leedahay marka okay banaanka taagan tahay qafa aragtay uu kula jooga xaafada uu sii socdaa marka waxa leedahay du gehst nach Hause yani xaafada ma uu sii socotaa okay xaafada ma uu sii socotaa waa marka hadaartii inaad tiraahdo waa ina xaafada aadaa qofka markaan qasba Soomaali fiiriya xaafada ma uu socotaa iyo xaafada waa ina aadaa farq weyn u dhaxayso xaafada waa ina aadaa qofkan waa amru saaq xaafada waa inuu tahay qasab ay ku tahay laakiin xaafada ma aadoosa waa iska hadal caadi ah marka du gehst nach Hause xaafada ma uu socotaa madana waxa dhigi kartaa du musst nach Hause gehen badana erigan iska ilaaliya hada lagu ma dhabaaqo way qarsantaa du musst nach Hause gehen wujida gaada iyo aada inaada la ku dhawaaqa bis du musst nach Hause gehen waa ina guriga aadaa okay muss sich duschen waa inuu qabeystaa badana hada aragtaan sich iyo dish iyo mish iyo reflexive waxa la reflexive verbs waa qofka markuu wax isku sameeyna ay imaada hadii ertay zich way hadii du tay dish way hadii ish tay mish way kula insha Allah 10 kale ku sheegi doonaa qaabka loo isticmaalo reflexive verban oo yani isku qofka isku sameeyna mar walba qofka asiga waxa qofka uu qabeysanayo asiga waxa qasab ku ah inuu qabaysto aan dhooya muss sich duschen maadaama qofka qabaysanaa asiga qabaysto isku sameeynayo zishtana imaanayso hada qofka soo horjeedana waa dish du musst dich duschen waa ina qabaysataa waa ma fahanteen marka okay hadana waxaan dhahayna du musst dich duschen okay labadaba waa haysana muss sich duschen du musst dich duschen asiga waa inuu qabaystaa adiga waa ina qabaystaa maxaa yeelay shiira cala muusata yani waa ina qabaystaa waa ma fahanteen marka waxaan dhahaynaa wir müssen marka kan uu dhibaday xogaa yar veshe iyo vashana la kala dhahaa xarafku waa idin weyneeyay because waa magac kan waa magac kan waa ficilka caadiga waa dhaqitaanka waa
die Wäsche waxaa la dhahaa dharka la dhaqaayo macnaha dharka markii meel lagu rido oo makiinada loo sii wado oo dhar in la dhaqa sugaayo oo laundry loo wado dharka kala duwan la waan naqaana laakiin dharkan waxaa la dharka markii wasakh yihiin la dhaqaayo la dhahaa die Wäsche marka badanaa a iyo e hasku qaldina fashion Wäsche saas lagu dhawaaqa Wäsche marka waxaa leenahay wir müssen unsere Wäsche waschen waa inaan dhaqnaa alaab dhar markii wasakh yihiin dabcan qasab waa in la dhaqso ma wir müssen unsere Wäsche waschen waa inaan dhaqnaa dharkeena laundry waa inaan sameynaa ma fahanteen okay ihr müsst meine Videos anschauen idinka waxaa qasab idinkugu ah videogeyga inaad daawataan ama videogeyga inaad daawataan hadda waa tusaalahaan waa aniga oo idinka idinla hadlay oo kale okay idinka idin hadlay iyo dadka ka soo horjeedo badan waa ihr müsst meine Videos anschauen hadii meesha jamac waa videos isa ku jirto that's why meine u dhahay hadii ist laga reebo video ay noqoto mein video ay noqonay bas ihr müsst meine Videos anschauen waa ina videoga daawataan okay marka u jeedin capital ka dhig markuu sido qofka soo horjeeda waay qoraalka lagu kala fahmaa dabcan way noqonaysaa dad badan oo maqan way noqonaysaa dad badan oo jamac ayagana way noqon kartaa marka waxa leedahay marka sie müssen mehr Deutsch sprechen okay sie müssen mehr Deutsch sprechen yani inaad jamal badan ku hadashaan qasab ah waa inaad ku hadashaan jarmal badan okay sidoo kale must waxaa isticmaali kartaa ich muss arbeiten waa inaa shaqeeyaa ma fahanti waa inaa shaqeeyaa lacag u baahantay marka mugta ich muss arbeiten waa inaa shaqeeyaa ich will arbeiten hadaa tiraahdo maxaa waaye waxaa rabaa inaa shaqeeyo laakiin qasab migu aha ich will arbeiten laakiin ich muss arbeiten magu qofka dhaa waxa waa qofkan qof shaqo rabo waa inuu shaqeeyo ka go'anta waay okay ich muss gehen waa inaan baxa ma fahanti dad la fadhiisa asxaabtaada xaafada u socotaa ich gehe nach Hause mit des guriga u socda markaas deer ku dhaha nala joog waxa laga yaabaa inaad joogtid laakiin markaad tiraahdo ich muss gehen waa inaan baxa dadku inay ka go'anta way dareemayaan waxay ku leeyahay okay ma fahanti shii ku dhaayaan okay su'aalahan waxay noqon kartaa musst du gehen su'aalahan waxa tiri ich muss gehen waa inaan baxa musst du gehen qasab ya inaa baxdid su'aalahan asna qofkii isla ficilkii u adeegsana qasab ay kugu tahay inaa baxdinayo amal musst du gehen okay sidoo kale gehen waxa la mid ah ich muss los waa inaa baxa yani waa inaa taga oo isku dhawey macnaha musst du los qasab ya inaa baxdid okay bixitaanku way badan tahay sidoo kale waxa isticmaali kartaa wax la dhaho musst du fahren markaan qofkan wuu buxooyaa okay musst du fahren wuu buxooyaa qofka laakiin marka macnaheedu waxa waaye ama baaskiilo ku buxooyaa ama baawar ku buxooyaa ama diyaarado ku buxooyaa qofka waxa leedahay musst du fahren okay macnaha buxuusa oo laakiin yani qofka gaari ama xas ku baxay okay sidoo kale waxa eragan isticmaali kartaa ficilkan musst du hier bleiben يعني قسم يكون تمشي إنا جوتد musst du hier bleiben musst du hier bleiben يعني قسم يكون تاني هل كان جوتد سو كل واحد يقرأ ich muss schlafen وحاجة قان إنا سحدو ich muss schlafen وحاجة قان إنا سحدو ich muss kochen وإنا يعني وحكريا فهمت لا يعني لازم أطبخ أنا عرفت لازم إنا وحكريا واي ich muss kochen